بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ما لا والله في عين قف من هذا من الشو سكور ولا جيس كم مرة من تاني ولا. يعني بدل ما تي في أما قلنا جايدا أما قلنا راديو وهي ما تنوى كورة سنة ولا جينا ور مربحي ولا جينا تي في بتجي. واحد نقول دعوة مساجد دعوة ما كقاتل عشان هذا يالا. ده واحد سلا عالمك وسكوا رمات كده بيسي على النديدي الغرام مركا وحبضنا على دي شيء ورطي يجلس كردين إنسانه بشرو وقت كده الله لومي معه أنا رجع هلك فردي وكود الدعوة أنا ملايين يا شيخ محمد عمر ملاس كل دوم نهاي مصطفى حج إسماعيل هارون بالله ده غير وده دابا كذا شيء بهاي حاج باو كما قعدنا الشيخ وها أو بي أو هارون بالورجلي أو قدام بيا أو يوسف بالورجلي غير علماء الدين كطحن أيام كذا شيء غيرها قبل كبرعة كل شيء وقت الاستعمار كان شيء تيان دولة الصومالية الأراضي dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umulo intaan walaalaanay nin quraan kaga dhashay cadan inta idin kalaba baadiyana loo diray baadiya ku soo dhalan baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaa ku dhashay isagaa wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaa ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydhku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay tumaal korontada tumaal ka fasir tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaala magaalada burcaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo badh meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladdaas soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligiina maxkamad layma taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkoodna 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culamada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bogsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana si aanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1980 jabhadu soo gashay wakhtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayaan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yahay 12 sannadood dambe burciyo hargeysun baa ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan ku salaysan haddaba aragtaa
waxaan xasuustaa iyadoo 1969 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay waddada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegan jiray baalada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la diri annaguna dhallinyaro uu markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan systemkaa ku qanacsanayna hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidaanuu imika isaga furaya isagama furay diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamaroo quray ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto saa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhaahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkaan haystay markaa waxaa kitaabka jalaaleynka la yidhaahdo jalaaleynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn ee waxay ahaan jireen dhowr xaashiyoodba way isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeya ku daboolan habeen baa labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ilagu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii adigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaaday يعني كتب ما تعالوا بعضاني أدي عديد واحد علماء ودك ودك نيد لكن لما أقولين إنه واحد دقان أما واحد خريان بل أي واحد لقيه بعد نند اللي يرى تهير كاب وقوة يدولة كوبرس إنه كاف وقادر إن نينون تفسير عام ما خريج شري ولي بو صومالي واقاسي تفسير كبشر رمضان وما يتبدل الآخر شري اختيار الكلام كتب في الغجامة نحو وحسن الآخر شري على كل حال وحنا قد الله أنا أنت نقول المام يا حويا شانس كايدك وحسيتان مقولي واقع شانس كان عين كتبته باقي إلى جيب كوسيدة كتبته ملك استلوي بنيو أي كتاب أضبه هتاد هليسو إلكترونيكالي شاملة سو دولار غرينيسو ودور يتمكنوا مجلدي كتيرة يعني جالس كسيدة تانية يقف وحسر سمين كره وحبحثي كره وحباري كره واقع مقولي لكن وحيا لي ضد كوميتد أو ددالية ددالية ما لا طاعتني من كجرته وإن إلهي وحنا نقول دوادان أي كجرته مكانه قضية عن شعرون الكوعلية وحويات ورنعمة هيستانا كسر سيسن دينتو sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambe na dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli mana gaadhin macallinkuna deris loo dira buu soo diyaariyaa oo uu deedhigaa waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabkan technology-ga inaan un yurub ka hortegayo wax akhriyo dad wuxuu akhriyey waxaan xasuustaa ajaladaha ugu badana hore ee maantiyadii dadku dhagaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray ama soomaaliyeed oo norway maqaaxid Somali welfare la yidhaahdo Somali welfare organization ayaan ku yidhi war labadii toddobaad maalin wax maydin akhriyaayo markaasay idhaahdeen haa niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badna markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla aliimaan arkaan aliimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka warramo
nin dhallinyara baan ah hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ilaa 14 cashaan mar helaya marka waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas ma soo gaadho markaas waa siiri mala ninkan sheekh weyn waa sheekh weyn marna ma noqonin laakiin fursad aanay jirin anigu wax la duubo ma rabin waxaan xasuustaa waxba duubina ku yiri nin dhallinyara baa intuu kamarad soo qaatay buu wuxuu sheekh ama fadhiyo waxa kharaabas ka tagay halka damo la fadhiistay marka waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyay درسكي دمباني مالتي دمبه عجلدو سوداني مكايو بدين وما بدنا في اتش اس باي حاجرين في اتش اس كده ورشد با بدين جرتي كليه انت عجلدي قادم بي ورشد جيي دبتنا دور بقول عجلدود باي كدغانو يغو ميشا كو يبينيان ugu yimi عبد الله حسين ka ayaa la yiraahdo iyo ina looran la yiraahdo Ahmed Baruudi iyago iibinayaan waa sideedee waxa la iibinaysaa wala sheekh masaajidka kirada kaga bixinayna markaas ka soo siidee masaajidka kirada alaga ka bixin marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelinay inaan duubo TV-ga wali ma tagin radio-na wali ma tagin wadaadku su'aalaha badan ee dadka weydiinayana malayn soo ka jawaababa ku fiican tahay أنا ويت أسمع جبا جبا يا والسلام عليكم.